shan waxaan kuu sheegi doonaa haddaad iska ilaalisid noloshaada waad horumaraysaa waayo nolosha horumar kaliya kuma aad abuuraysid waxaad ku abuuraysaa inuu caqligaagu uu ku koro bodigan wuu koraa wuu weynaadaa cuntada ayaan ka badina maskaxduse waxaa ku jira baaxad ballaaran oo aan dareemi karin laakiin waxaa jira wax caqabado badan oo tiro badan oo aan yani slow ka dhiga so number one hurdada tirada badan waa cudur hurdada tirada badan uma ogolaata maskaxda inuu qofka caqligiisa uu koro laakiin jirka ayay korisaa waayo muu hurdid muu cuntada cunti jirkaaga digestive ku noqdaan bodigaaga kale ayaa kori kara laakiin maskaxda kuuma korin two hurdada yar caqliga ayay yaraysaa waayo qofka xasuustiisa ayay ka tirtirtaa iyada ugu daran subxaanallah xasuusta ayay qofka ka tirtirtaa hore uma socon karo saddexaad xanta waa midda ugu daran oo qofka ibni aadanka adiga amaadan dhimin waxna qofka laakiin adiga ayaa naftaada wax u dhimay sababtoo qofka kuuma oga waxaad ku xamatay kuuma oga waxaad ku xanuujisay adiga unbaa is xanuujiyey oo qofka yacni laqay oo cunay oo ku tuntay oo yacni maanta dhanna ka hadlayso u ekaasu u socday inay nolosha wax kasii yihiin in maanta uu wax kasii yahay shalay uu wax kasii ahaa maantaan reerkiisii asagaba iyadii maaragtay wax kasii yahay laakiin waxaa ogaataa kuuma oga xanta xamanaysid waayo qalbigoodii waa u nadiif waa u kabcay laakiin adiga qalbigaagii dilmay oo qalbigana mugdi kaa noqday at the same timena ku abuuray maskaxdaada inaysan chronologically aysan korin waayo waxaad noqonaysaa qof caqligiisii korniinkii caqligiina ka yaraaday laakiin bodigii u koray oo 19 jir 23 oo yacni da'diis way sii socotaa laakiin caqligii muusan korin caqligii wuxuu koraa waxyaalahan markaad ka ilaalisid waxaa kaloo ka ilaalisaa caqligaaga inuu kuu koro haddaad doonaysid jalasiga waa dilaa jalasiga kama hadlay lamaanaha jalasiga waxaan ka hadlayaa walaal sister to sister aabo yacni walaal kale family friends waxaasoo dhan jalasiga waa qad madow oo kaa dila qalbiga kaa xaniba waxbarashada inuu maskaxdaada ay korto ay kobacdo waayo mar hadduu kusoo daakhilo mugdi ayaa kusoo daakhilay ma doonaysaa mugdiga inaad ku jirtid no habeen iyo maalin haddaysan leer ku shidnaanin ka waran oo mugdi aad dhex taagnaatid no kuma suurtagelayso soo taa iska ilaali waxaad kaloo iska ilaalisaa ereyga la yiraahdo nacayb I don't like that maanta dhahdhihin waxaad tiraahdaa maasha allah this is really lovely this is really good waa wax wanaagsan qof yacni wanaagsan markaa aragti kor u qaad qof wax ay ka qaldayn markaa aragti u duceey qof markaa aragtid oo yacni meel kasi ah yacni niyadda waxaa gashata maasha allah tabaaraka allah have a good intention mar kastaba niyadda qofka waxaa ka niyadsataa dhan wanaagsan maxay ugu xiran intaan soo sheegay waxaa ku xiran korniinka maskaxdaada inay korto ma doonaysaa maskaxdaada inay kobacdo intaan aan soo sheegay dib ugu noqo noloshaada ka tirtir kala jeclow weliba waxaa idinkugu sii daraya idinkugu reebaya insha allah oo ah ereyga igu dambeysa oo aan rabay inaad si fiican u fahantiin oo weliba definitionka wax walba waxaa jiro turjumid la turjumo ama la fasiro erey aniga haddii aan fasiro waxaan u arkaa inuu xantu ay tahay wax aniga aan samaysatay oo yacni qofka hadda qof xamanaysid adiga maskaxdaada ku samaystay maskaxdaadii ayaad ku qufushay maskaxdaada ayaad wasaqdi ku daadisay boor ayuu ku dhalisay boorka wuxuu kaa xiray oxygenka neefta oxygenka markuu xirana memoryga wuxuu noqdaa decrease hoos dib u dhacaa so intaasoo dhan waa inaa nafteeda kala jeclaada qofkan intaan maaragtay xaman lahaa ama jealous ka noqon lahaa waayo I love myself inaan dhaho for doing this يعني ما هن I love myself إنا وحن سميستو وين ده I love myself إن حنتود قف كلو إنن أوجن يعني وحبي إيجا ورقبين حتى وحن ده ما أوجا وحن كوعي ما أوجا مسكحد وحن أوجا هاي ما أوجا وحن قف كل كجشكي ما أوجا قف كاوس عنا نلش يسوى لكن مسكحد يسوى وفي يوده قف كاس أحمل يسوى ويا مسكحد يسوى وفي يوده هاي عقلي يسوى وكامل قلبي يسوى ونظيف لكن قف قلبي يسد لي آخر دي سن دبات إسقارسية وقف كوحمنيه so intaa iska ilaali waan dhamaasantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu